xildhibaan Ibraahim Jaamac Cali Reyti oo kamida mudanayaasha golaha wakiilada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ugu jira maalmahanba waxa jiray warar isla dhexmariyay oo sheegayay in mucaaradnimadaadii ay hoos u yar dhacday cadaadiskaaga yimid dhanka madaxtooyada awgii arintaas maxaad ka leedahay waxaan ka leeyahay waa dacaayad raqiisa madaxtooyadana xidhiidh ma lihin annaguna waxaanu qabnaa in dadka madaxtooyada jooga ay nagu soo socdaan annaga oo waanu sugaynaa laakiin waa dacaayad aan meel mar ahayn waxba kama jiraan waa arrin nasiib darraa waxaana ku muujinaysaa maamul xumada xukuumadda tan iyo hogaamin la'aanta ka taagan xukuumadda tan waana arrin ka socota xagga madaxtooyada waxaan aad uga xumahay in ilaa xadka ay ka muuqato sida xukuumaddu aanay u midaysnayn aanay hoggaan u lahayn aanay aragti midaysan u lahayn ay isku haystaan oo isaga daba tegayaan maamullo iyo magacaabiso iyaga dhexdoodu ka soo wada baxday xildhibaan Reyti waxaad ka mid tahay mudanayaasha golaha wakiilada in muddaana waxaad safar ugu muuqnayd qaar ka tirsan wadamada qaaradda Yurub siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda madaxweyne Siilay aad baa loo dhaliilaa bal adigu maxaad soo aragtay intii aad qurbaha ku maqnayd wasaaradda arrimaha dibadda siyaasadeedu shaqeynayso inkastoo aan aaminsanahay xukuumadda Siilaanyo siday u fashilantay inay gudo iyo dibadba fashilantay haddana fashilaadda ugu weyn waxay ka muuqataa siyaasadda arrimaha dibadda waxaad moodaa inaynu luminay magacii iyo karaamadii aynu ku lahayn caalamka waxaad moodaa inaynu luminay taageerayaashii faraha badnaa Somaliland ay lahayd waxaad moodaa inaynu luminay rajadii caalamku uu ka qabayay inay noqoto Somaliland dal yar oo dimuqraadiya oo cadaalad iyo maxaan ku rahdaa horumar gaara waxaad moodaa in caalamkii inaga sii jeestay oo quus ay ka qabaan waana wax meel walba yaala meel kastoo aan tago meel kastoo aan arko cid kastoo aan arko sidoo kale waxaan arkay in qurbajoogii reer Somaliland oo kaalin weyn ka qaadan jiray taageerada iyo maxaan ku rahdaa abuurista maxaan ku rahdaa ama fidinta magaca Somaliland niyad jab weyne uu ku dhacay oo ay dib u wada fadhiisteen rajo xunna ay ka qabaan xukuumadda Siilaanyo magaalada Hargeysa xaalkeeda ku dilal ka saraakiil kastoo badan madaxda jiraan dad dilal gacan dhiglayaan baa la soo qaban meesha xaalkeedu wax taran arrinta qofka waxaan ka waranayaa isku dilaa ma jiraan anigu ma xasuusto bariyaha reero isku dilay waxa istila sida la socotaan waa askartu waa ciidan dawladeed waxa isku dilaan ciidanka dhexdiisa ayaa istila ciidanku ma matalaan reero waxay ka mid tahay burburinta dawladnimada marka askariga la yiraahdo askariga waa reer hebel haddii marka operation loo diro uu noqdo reer hebel marka operationkii ama uu ku dhinto ama uu wax ku dilo in la yiraahdo reeruhu ka wada xaaleen ama magac reereed la siiyo ama magac beelad la siiyo waxa weeye macnaheedu dawladii ma jirto weeyaan waxaan qabaa ergaabo waxa ka socda waa wax xagga dawladda ka socda maaha wax beelaha ka socda xildhibaan waxaad ka mid tahay xildhibaanadii golaha wakiilada ugu codka badnaa ka soo baxay gobolka Sanaag inta badan waxa la sheegay in xildhibaan Reyti aanu dib uga noqon deegaankii laga soo doortay kalsooni inta laga bad ka qabta dadka adiga ku soo doortay shacabka xaga ku soo doortay markii daba xildhibaannimada ugu gudubtay wal anigu deegaankayga waan ku xiranahay
dadkaygana waa ku xidhanahay hadday doorasho dambe noqotona maxaan ku dhahdaa kalsoonida waan ku qabaa waa run Ceergaabo waa meel fog ku naqshadeedu waa adag tahay laakiin waa been inaanan ku noqon xidhiidhna waan la leeyahay joogto ah waana ku noqdaa markay ii suuro gasho waxqabad intee lag baad u soo deegaankaad ka soo jeeday xildhibaan baa tahay mataliya deegaankaas way ku soo doortaan wax ilaa haddeer aad u qabataad farta ku fiiqi kartaa ma jirta anigu waxba ma qabto xildhibaankana waxba ma qabto xukuumadda wax qabataa budgetka wax qabashadana iyagaa ah anigu waxaan ay xeer dejiye xilkayguna waa xil qaran xukuumadduna sida ay wax uga qaban weyday deegaanka aniga laga soo doortay ee ay maxaan ku dhahdaa uga qadisay khayraadkii iyo resourcekii qaranka waa waxyaabaha ugu horreeyay aan isku qabanay bay ahayd xukuumadda waana u caddahay deegaankayga in cidda wax qabanaysaa